السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق حاجة كان بدأها وحجارة يا وحكة بدن بقول كن أو كيلومتر سكويرة بد كوين دلك برتقيس كوح بدن وحنكبو حشدال إيجاز طبيعي وحين يدا تقص دعاية هذه خيرات كبدن كجرة لصابحية وحنوها للدونا مالين كحاجة سيدانو كله. يلا طلع وزع فرقوا مالي. وحنسرك هنا أنا قوله كينيا وإثيوبيا ما عندكم فلوس مساكين والله مساكين. ولد دول كميات كسعتان جوارب بوبا يمن راعيسان سيدان نضو كله وحد فوري دونتان جواري أدن حتى ولين ريكو أرق لكن هدك دقنا شالي تلادة دي محكمة عالمية ICJ هيك نذرلاند أياقو أنك صارتي مرانكي بدا صوماليا كينيا. To the rest of the day's news, and the UN's top court has rejected Kenya's claims in a maritime border dispute in the Indian Ocean. In a courtroom 10,000 kilometres away from the disputed maritime area in question, judges at the International Criminal Court at The Hague handed down their decision in the case of Somalia versus Kenya. waxaan sheegaynaa inta aan mowduucan ku guda jirno go'aanka waxa uu yahay iyo khariirada cusub meesha ay marayso sidoo kale Kenyaatigu maxay ka dhaheen arrinkan go'aankan ay maxkamadda soo saartay annagoo isha marin doona dabcan saxaafadda Kenya waxaan sheegaynaa sidoo kale hadallada ay jeediyeen Farmaajo iyo Kenyatta marka koobaad ha u malayn in loolankan uu shalay soo bilowday ama mar dhow wuxuu soo jiitamayay ilaa ay bartamay 700yadii iyo xitaa ka sii hor ilaa qaar ayaa leh laakiin in maxkamad la isla aado wuxuu soo bilowday 2014kii haddaba si aan u fahanno qadiyada iyo arrinku waxa uu yahay waxaan u baahanaynaa in aan maabkan fahanno marka hore maabkan aan ku laabanno Kenya waxay rabtaa in uu xuduudku sidaan ahaado laynkan midabka bunniga ah leh ayay aqoonsan tahay taasoo ka dhigan in xuduud badeedku uu gudaha u galaayo badda Soomaaliya dhinacaasna uu u qalloocanayo dhinac Soomaaliya xageede halka Soomaaliya ay leedahay no maya arrinkan ma soconayo hakuna matata sideed wax u wadaan khadka xuduudka badda waa inuu noqdaa khadkan jaalaha ah taasoo ka dhigan dhulka la isku haysto in uu ka badan yahay 100,000 oo kiiloomitir square. The court finds that there is no compelling evidence that Somalia has acquiesced to the maritime boundary claimed by Kenya, and that consequently there is no agreed maritime boundary between the parties at the parallel of latitude. waxaad kaloo sii ogaataa inta mowduucan aad ku guda jirto maskaxdaadan aad ku sii baragaraamisaa in maxkamadda Hague ayna ahayn jiho wax fuliso ee ay tahay kaliya jiho wax soo saarto taasoo ah go'aankan ay gaartay maxkamaddu fulintiisa shaqo kuma lahan taasoo ah sidoo kale haddii ay Kenya berri ciidamadeeda soo dhoobto dhulkaas baddaas la isku haysto arrinku uu yahay Soomaaliya isdabara maxkamadduna ayna lahayn jiha wax fuliso ayna lahayn ciidan ama il wax fuliso kale maxkamaddu waxay soo saartay bayaan ka kooban 79 bog watana kharaa'id aad u badan maabab aad u badan waxaan arki doonaa khadka cusub soodinta cusub meesha uu marayo bayaankaas ay maxkamadda soo saartay asagoo PDF ah ayaan soo dhigay commentiga ugu horeeya ama descriptionka cidii rabta inay macluumaad badan ka sii ogaato Kenyaatigu waxay maxkamadda la tageen xujo ah in Soomaaliya ay mar hore ku heshiiyeen xuduudkan Soomaaliya ay aqbashay sida inay 2009 tusaalaan u soo qaateen laakiin maxkamaddu arrinkan way ku gacan sayrtay waxaana lagu tilmaamay iska sheegasho aan wax xujo ku taagnayn waana lagu diiday sidaas darteed maxkamaddu waxay soo saartay go'aan ah in 96% biyihii lagu muransanaa dhulkii la isku haystay Soomaaliya loo saxiixay waxayna soo saartay maabkan hortanada ka muuqda yaa salaam oo aad u waafaqsan sidii ay Soomaaliya doonaysay si fiican u fiiri maabkan cusub si fiican u fiiri laynkii hore waa midkan si fiican u fiiri maabkan waxaad arkaysaa in uu aad iyo aad u waafaqsan yahay inkastoo sidaan arki doona qayb Kenya la sii dhulka la isku haystay laakiin ilaa heer badanna waliba khadkan cusub wuxuu waafaqsan yahay sidii aan rabnay sidii Soomaaliya ay rabtay waana arrinka keenay in Soomaalidu ay dabaaldegaan maxkamaddu waxay saldhig uga dhigtay xuduudkeeda yani xuduudka bariga laga soo bilaabo gaashaankan geeskan inuu khadku toos noqdo ilaa iyo gudaha badda laakiin waxaan arki doonaa in meel wax yar laga yar qaloociyay maxkamaddu waxay aqbashay dhinaca kale hal arrin oo ay Kenya ku doodaysay oo ah ayadoo la xeerinayo lana fiirinayo duruufaha gaarka ee qalfoof badeedka continental shelf ama aljurf alqaari ayadoo la fiirinayo duruuftan wax yar yani waa in geeska la yar qaloociyaa dhinaca Soomaaliya wax yar waa in la yar qaloociyaa Kenya sida maxkamaddu ay soo saartay waxay ka baxaysaa dhammaan dhul badeedkii ay horay ugu jirtay badda Soomaaliya
طبعا loo xukumay ah waa inay reeriyooyinkooda qaataan kenya waxay Soomaaliya ku soo wareejin doontaa dhammaan xogta macluumaad dhammaan wixii daata iyo bayaanaad ay ka hayeen baaritaanadii ay sameeyeen ee shidaalka Kenyaatigu yani dhulkan la isku haystay ayay keeneen shirkado baaro sidaas darteed macluumaadkaas dhan waa inay soo wareejiyaan waa inay Kenyaatigu iska soo wareejiyaan maadaama dhulkan Soomaaliya loo xukumay haddaba akhyaaray kadib bayaankaas yani Soomaalidu way dabaaldegeen sidaan soo sheegnay aad ayaana loogu riyaaqay aad ayaana looga hadlayay inkastoo dadka qaar ay weli leeyihiin cadka yarka xataa Kenya in la siiyo ma ahayn xaq ayeen u leeyihiin runtii inay saas dhahaan haddaba kadib bayaankan labadan ninba way hadleen waxaan ula jeednaa Farmaajo iyo Kenyatta marka koobaad bayaan aad u dheer ayaa laga soo saaray Villa Soomaaliya saldhigno bayaankaas hadal uu jeediyey mudane Farmaajo oo ah waxaan u dabaaldegaynaa guushan waa guul ummadda u soo hayatay muddo dheer ayaan arrinkan ku soo guda jirnay yani bayaan aad u dheer ayuu ahaa oo ah dabcan dabaaldeg yani soo koobitaankiisu uu yahay dabaaldeg inaan wax badan soo rafaadnay in aan dadaal dheer galnay wuxuuna u mahad celiyey qareenadii ay Soomaaliya wakiilatay laakiin dhinaca kale sida hortanada ka muuqato ee uu qorayo TV-ga Citizen ee Kenya wuxuu leeyahay madaxweyne Kenyatta ayaa diiday hor istaagay dhammaan wixii ay soo saartay maxkamadda ICJ markaad akhriso dabcan bayaankan wuxuu leeyahay nama quseeyo wax maxkamadda ay soo saartay waanan diidanna wuxuu raaciyay markii la idooranayay waxaan ku dhaartay in aan ilaalinayo xuduudka Kenya dhulkeeda inaan ilaalinayo fariintan dadka qaar ay ku socotaa sidaas darteed haba yaraatee ma aqbalayno wuxuu raaciyay in go'aankan ay maxkamadda gaartay oo mandiqada ama deegaanka bariga Afrika u horseedayo waa sida uu leeyahay Uhuru Kenyatta loolan cusub qalalaaso cusub dabcan ninkan markuu sidaas leeyahay nasiib xumo wuxuu isku halaynayaa ciidankiisa ku sugan gudaha Soomaaliya arrinkan oo runtii fadeexad yani markaan anaga hadda mowduucan markaan ka hadlaayo waxaan dareemayaa yani gudaha inaan ka gubanayo dawlad yani waxa soo loolan kala dhaxeeyo intaas sana soo taxan in ciidamadeeda ay joogaan gudaha dhulkaada waxay rabaan ay ka sameeyaan يعني runtii waa mowqif aadan la jeclaanaynin yani qof nooc u ahaadaba aadan la jeclaanaynin dawlad loolankaas idinka dhexeeyo waxaasoo mashaakil idinka dhexeeyaan in ciidankeeda uu ubuucdaada ku jiro gudahaada ku jiro waliba dhulka ugu qaalsan dhulka ugu barwaaqada badan jubbada hoose waxay ka dhigantay Amazon waxaad ku tilmaami kartaa Amazonta Soomaaliya waa dhul barwaaqo ah gado dhinaceeda dambe sidoo kale waa dhul barwaaqo ah laakiin Kenya joogto marka talo waa maxay waxa aan u dabaaldegayna badda aan u dabaaldegayna maxay tahay haddii ciidanka Kenya gudaha Soomaaliya uu ku jiro runtii waa fadeexad weyn طبعا markuu leeyahay oo sidaas u hadlayo leeyahay ma aqoonsanin yani arrinkan wuxuu sii horinaya loolanka yani mushkilad siyaasadeed ayuuna ka dhaxdalinaya Kenya iyo Soomaaliya arrinkan ay isku haleynaya saxaafadda kala duwan ee Kenya sida Daily Nation sidoo kale waxay leeyihiin Kenya ayaa diiday yani si waxa uga hadlayaan maxkamadda waxay soo saartay Kenya ma ogolo sidoo kale ma ogtahay in Kenya ay ilaa hadda sheegatay jubbooyinka in Kenyaatigu ay marmar ka dhawaajiyaan in iska dhaaf badda inay leeyihiin dhulkan jubbooyinka yani Ingiriiska idin si anaga lahayn ma ogtahay in Kenyaatigu sidaas ku doodaan laakiin anaga aan ku saacidayno Kenya yani weligood arrinkan oo kale kuma yani xitaa riyo weligood saan oo kale kuma fikirin xataa inay dhici doonto in saxan dahab ah loo saari doono wixii ay rabtay ku soo dhawow dhulkii Soomaaliya laakiin Kenya waxay leedahay mid ka mid ah ciidamada ugu daciifsan Afrika ciidanka Kenya barqadii hore ayaa la jabin karaa sidaas darteed mushkiladu waa in qayb anaga naga mid ah Kenyaatiga hor ordayaan runtii shacabkan Soomaaliyeed intaas sano jabka iyo mashaakilka ka cabanayay xaq ayuu u leeyahay in uu xogaa farxo laakiin sidoo kale ha hilmaamina weligeena ha hilmaamina in Kenya ciidankeeda uu gudaha Soomaaliya ku jiro ra'yigan cabira diida macnaha in ciidankaas Kenyaatiga ay dhulkeena joogaan sidoo kale iyo natiijooyinka xuna ka dhalan karo la qadar haduu dagaal dhac ka waran yani Kenya gudahaada ku jirtaa maxaad samayn kartaa runtii waa waxaan la fahmaynin macna anaga waxaad moodaa inaan dhinaca dabeesh ay ka imaanaysan u soconno ama fikirka maskaxda macna in jilbaha nooga jirto maskaxda bini'aadamku soo madax kuma jirto in maskaxda ay lugaha nooga jirto shayga aan samaynayno Kenya waxaan isku haysanaa baddaas kadibna dhulkanaga ayaa leena soo gal mowduucan intaanu ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh